daawadayaal war degdeg ah waxaa la sheegay in ninkii lagu magacaabi jiray Haykal boqorada isteelka ninkii qabay ee baraha bulshada caanka ka ahaa in lagu xiray magaalada Hargeysa. Haddaba arrintan ayaa waxaa si weyn loogu sameeyay warar kala duwan ayaa soo baxaya oo wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in boqorada isteelka boorso calanka Soomaaliya oo ay Muqdisho kala timi oo ay gurigeeda markaasi geysatay in ciidanka booliska Somaliland intay qabteen markaasi ninka lagu magacaabo Haykal gurigiisana baadheen inay ka dhaxeleen markaasi calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Arrintaasi ayaa war markaasi gaar u sheegaya. Dhanka kalena warar kale ayaa waxay sheegayaan in xaragiisa markaasi lagu eedeynayo ama se lagu tuhmayay inuu ka dambeeyay arrin xidhiidha in ehelkiisa ama qaraabadiisu ay dhaliilo baahsan markaasi u soo jeediyeen xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Haddaba arrintaas oo laba qodob ayaa waxaa markaasi social media ku jirta in arrintaas loo xiray oo waqti xadirkan oo aan warka idin soo duubay ama xogta idin la wadaagayo ayaa waxa uu ku xiran yahay saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa, halkaas oo liinta ku miranayo. Waxaana la sheegay inuu caawan halka u hooyan doono oo berri oo Isniin ah arrintiisa laga wada xaajoon doono. Waana markii ugu horeysay ama markii labaad ee boqorada isteelka ninkeeda Haykal ninka lagu magacaabo markaasi ay xidho. Haddaba Somaliland waxay markii ugu horeysay suurtagal ah inaad haddaad xidhato ama se aad diido yacni taliska Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisa in haddii aad ka soo horjeesato in jeelka lagu taxaabayo oo lagu dhaadhicinayo. Arrintaasi waa arrin cajaa'ibkeeda leh oo markaasi dadka xuquuqda aadanaha u dooday kuwa insaankaba ay si weyn u dhaliilayaan. Haddaba arrinta ugu weyn waa arrinta idin soo sheegayo ah in lagu xiray calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gurigiisa intii baaritaan lagu sameeyay laga helay. Dhanka kalena kooxo markaasi ehelkiisa ama qaraabadiisa ayaa waxay dhaliilo baahsan u soo jeediyeen xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Haddaba xogahan iyo xogo kale oo dheeriya ayaa sidaas tibaaxaya. Waxaa warar kalena sheegayaan in boqorada isteelka qudheedu haddii ay joog lahayd magaalada Hargeysa in markaasi labadoodaba jeelka lagu tuuri lahaa. Sidaasi daraadeedna ay boqorada isteelka magaalada Muqdisho aaday oo ay kaga qayb galayso aroos weyn oo loogu dhigay fanaan markaasi dhalinyaro iyo sidoo kale gabadh kale oo iyaduna TikTok caanka ah oo markaasi arooskeedu xalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Arooskaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa arooskii ugu weynaa abid ee ay dhigtaan dhalinyarada TikTok ka niikisa ama ka jaasta. Sababtana ayaa waxaa lagu sheegay baa la leeyahay waxaa ka soo qayb galay fanaaniinta waqti xaadirkan 2023 ugu markaasi fiiska badan uguna shacab tirada badan, kuwaasi oo ah fanaaniinta reer waqooyiga iyo sidoo kale kuwa koonfurta oo markaasi isu tagay. Waxaana la sheegay in gabadha si weyn arooskeeda loo shiday. Boqorada isteelkuna iyadana ma la xidhi doonaa markay ku soo guryo noqoto Somaliland oo indhaweytaba ay markaasi salka dhulka dhigtay maadaama ninkeedu uu ka soo jeedo waqooyiga dalka Soomaaliya, gaar ahaan waqooyiga gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland. daawadayaal Haykal wixii warar akhbaar ka soo kordha halkan ayaan soo gelin doonaa warbaahinta Hogol News. Fadlan isha ku haya si aad u heshaan xogihii ugu dambeeyay caalamka, waxyaabaha ka dhacaya social media, gaar ahaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood oo doodiyo fara badan ilaa ka soo hadalna. Xaaladaasi waa xaalad markaasi halisteeda leh oo Somaliland inay markaasi ku duusho dad gaar ah ama dad iskale dhulkaasi ay ku khaldan tahay wixii war ah ama xog ah ee la xiriira dagaalada halkaas ka socda. halkan aan dib soo gelin doona annagoo markaasi inaan xogahaasi intaan yani iyagoo tafaftiran halkan soo gelino, balse qadiyada la xiriira dadka deegaankaasi sida ay rabaan inay markaasi u tashtaan wixii war ama akhbaar halkan aan dib soo gelin doona. waa mahadsantiin. halkanina waa warbaahinta Hogol News, aniguna waxaan ahay Cabdiweli Nadaara.